بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد waxaan insha Allah waa kulankeenii isxasuusinta khawaatirta Ramadaan. waxaan soo joognay waan ka soo hadalnay shuruudii Ramadaan oo marka waxaan rabnaa si kooban inaan oga hadalno arkaanta siyaamka. arkaanta siyaamka inta badan waxa weeye aad baa looga hadlaa, laakiin waxa weeye maqaasida iyo ujeedka laga leeyahay soonka ayaa mararka qaarkood shuruudaha rukni kastaba uu leeyahay kolka la sii fasiro waxaad moodaa inay dadku aad ugu mashquulayaan tafsiilaad oo mararka qaarkood nusuusta iyo salafu saalix agooda aan ka soo aroorin aad ugu mashquulayaan. marka arkaanta marka la isku duubo xataa madhabka shaaficiga kolka la isku duubo waa saddex rukni. ruknina hore aan soo sheegnay waa qofka saa'imka ah yaa noqon kara saa'ima waan ka soo sheekeynay, laakiin labada rukni oo kale asaasiga ah oo la isku waafaqsan yahay waxaa ka mid ah an-niyya, niyada koow, iyo al-imsaak can al-muftiraat, waxyaalaha muftiraadka ah oo wax afriya oo laga haysto oo laga reebtoomo. labadaa haddii laga helo qofka yacni sameeyo oo si wanaagsan u guto oo weliba si niyadda ay ku jirto u guto, markaa soonkii wuu ka asaxayaa. midda koowaad aan soo qaadano oo ah niyadda axkaam badan yaa niyadda ku xiran. salaadu waxay u baahan tahay niyad, xajku wuxuu u baahan yahay niyad, yacni camal kasta oo zakada iyo kulli iyo wax walbaba niyad ayay u baahan yihiin. oo waxaa daliil u ah xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa. marka niyaddu inay asaas ay tahay ayaa yani camaasha oo dhan ku jirta. marka la joogo soonka waxaa laga rabaa qofka inuu niyeysto yacni inuu soomaayo berri, inuu soomaayo habeenkeeda inuu niyeysto. xukunkeeda niyaddu waa farad ayay ku tahay, waajib ayay ku tahay. soomka ramadaankana ma asaxayo iyo waxyaalaha kale. niyadda waa midda kala saaraysa marka niyadda ayaa asaas ah, ruknigaas u ah. shuruudda marka ruknigaas oo niyadda ah soo hosgalaysa waxaa weeye shardiga koowaad waa inaan niyaddu ay kula barido, macnaha aad barasiisaa oo habeenkii aad niyeysataa inaad berri aad soomayso ramadaanka. marka ramadaan ha noqdo mise soon aad soo gudaysa ha noqdo, walaa soon kafaara ha noqdo, walaa soon nadar ha noqdo, soon oo dhan yacni waa inaad niyeysato ayaa laga rabaa niyeysato. haddaysan ahayn habeen bariska, haddaysan ahayn soon sunno ah oo maalintii zawaalka ka hor ayaa dhici karta inaad macnaha aad samayso. xafsa waxaa laga wariyay radiallahu canha nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi, man lam yubayit asiyaam qabla alfajri falaa siyaama lah. qofkii soonka aanan barisiinin fajirka horteeda soon uma sugnaanin. marka soonku marka waa niyaddii inay dhacdo oo mar allaale kolkii habeenkii ay dhacdo ayaa ah. marka waxaana ay asaxaysaa ghuruub shams ilaa tuluuci alfajr, fajriga oo saadiqa ilaa uu ka soo baxo inaad niyeysato. marka niyeysashadaasna waxa weeye niyadda inaad ku qabato ayaa asalah. ku dhawaaqista ama aad ku dhawaaqaysana yacni bacd alculamaa ayaa yidhi oo weliba mutaakhiriintii oo raba dadka niyaddooda inay qabsadaan, laakiin ma aha wax shardi ah oo waxa weeye salafu saalix iyo mataqaanaa in laga joogo ilaa culimmadii waaweyneed iyo kama dhigin shardi, laakiin waa wax loogu talagalay dadka in lagu baro ayay ahayd. marka waxaa habboon niyadda keliya haddaad qalbiga ku haysato, suxuurtaad u kacayso, isdiyaarinta aad isdiyaarinayso, waxaasaaba niyaddaba calaamad u ah, waa niyaddii inaad la timaado. iyadana waxaa muhim ah niyaddii in aad tacyiiniso oo aad leedahay berri inaad soomayso
oo waajibkaas oo aad gudanayso saa'imka ramadaan inaad soomayso oo niyaddii ay kuu tahay mucayan ay kuu tahay oo berri in aad soomayso marka taas imaam maalik unbaa dadka qaba in macnaha niyadda بعض العلماء أو يرى رمضان هدو صاقل نيد بما باهنا ويجرتا لكن علماء أغلب كذي جمهور تدوحي أبدا نيد إنه لو باهي هاي إمام مالك وحو قباء يساقل بالرمضان هدي اللي صاقله باللوغة ده هداد نيسته صدن كمال موت ويكوغو في الانتحي لكن شافعية وحي ليهين وإن التكرار أي جرته هبين والبابا وإني نيستها نيدادا marka ficilkaaga amba inaad bari ku suxuuranayso inaad bari soomayso niyada inaad ku qabato yaani dadkuna waa shay inta badan xaasil ah way marka intaas ayaa niyada looga baahan yahay marka inta in ka badan niyada sidaan iyo tafaasiil kale oo yaani hadii la sii galo waxay noqonaysaa kaliya noocan ma adkayn midda kale waxa weeye niyada marka aad niyeysanayso yani soonka inuu ramadaan uu ku yahay inaad ogtahay laakiin haddii ramadaan waxaanan ahayn aad soomayso inuu qalla uu ku yahay inuu kafaaro yahay niyada nooceeda ayaad niyeysanaysaa haweenayda xataa ma niyeysan kartaa baa la yidhi iyada oo maalintii xaydka qabta oo laakiin caawa joogta oo oranayso waqtiga dambe uu ka go'aya way si niyeysan kartaa iyo culimada ay yiraahdeen niyadaaduna waa inay go'an tahay oo aad niyeysataa laakiin waa soomaya insha Allah oo macnaha inaad soontay in kala shaki haduu kaaga jiro niyada ma go'ana waa niyad go'an waa inay tahay inay aad soomayso insha Allah hadaad dhahayso baraka ahaan u dhahayso waad dhihi kartaa laakiin niyad shaki ku jirta lama rabo وانا بشاس رمضان إن أتصنت وحكله والنية أتكو هي ستراهضو رمضان نوان سمينا يا وحكله نوان كوجودا يا نذر نوان كو سمينا يا نماها انتاس وقيبت النية أيا كأورن لهن يدا أو كوبان هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته